kusoo dhawow Somali Voice in Norway magacaada iyo muddada aad magaalada joogtay. يعني هو عبد الرحمن ورسامي عبد الله ضد الحقيقة أنا عبد الرحمن زيو waxaan deganahay 15 sano ayaan deganahay Bergen. Sidee u aragtaa tirada ururada Soomaalida iyo tayadooda? Tayada ururada Soomaalida kaliya ururada markaan ka eego dhinaca waxqabadka ururada kale maarta ajaanibka waddanka degan waxaan moodaa in ay wax badan u dhaxeeyaan oo taynada ay aad u hooseyso tayadooda marka laga fiiriyo oo ay aad u badan yihiin marka anigu waxaan dhihi lahaa maarta tiradana oo aad bay u badan tahay waxqabadkoodu waa yaryahay. Ma jiraan ururo aad isleedahay waxbay qabtay iyo kuwa aad isleedahay waxbay ku dheeleen? ayagana waxbay qabteen oo maarta ma dhihi karo maarta laakiin intii loo baahnaa lama qabanana waan dhihi karaa. maxay ugu baahi badan yihiin bulshada Soomaalida Bergen ku dhaqan? waxqabadka dhalinyarada wax loo qabanayo baahida ugu badan anigu kulli halkaas aan taaban lahaa waayo anaga Soomaalida wax dhaqaalaha waddankan maarta kuma haysano caruuran ku haysanaa marka waxa kaliya aan haysano waa caruur marka ayagaas aan dhihi lahaa maarta waxqabadkooda gaar ahaan dhalinyarada maarta sidii dhaqankii loogu celin lahaa maarta luqadooda loo dhisi lahaa waxbarashada loogu taakulayn lahaa dhinacaasaan aniga aad waxaan u saari lahaa maarta kulli focus ku saari lahaa. maxay tahay fariinta aad Somali Voice u marinayso heerarka kala duwan ee mas'uuliyiinta Norway? Norway runtii waxaan dhihi lahaa maarta in dhalinyarada Soomaalida waxaa jira adduunyada waxaa la yidhahdaa shaqo khaas ah oo Norwegian-ka uu leeyahay self-shift wuxuu leeyahay mehtaag waxaa la yidhahdo oo maarta khaas ah waxaan dhihi lahaa dhalinyarada Soomaalida culayska haysta runtii way ka duwan yihiin culeysyada kale waayo guryaha ay maarta dhalinyarada Soomaalida waalidiinta iyo nooli kuwa nool xataa maarta ma ay haystaan waxyaabo badan oo facilities marka dawladda waxaan dhihi lahaa dhalinyarada Soomaalida ee Norway degan ama ku dhashaan ama ayagoo inay yimaadaan xuquuq dheeraada loo maarta inoo gacan siin dheeraada maarta in la siiyo ayaan ugu kulli Norway ka codsan lahaa. maxay tahay fariinta aad Somali Voice u marinayso bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Bergen iyo nawaaxiga? bulshada Soomaalida waxaan u jeedinayaa ururadan tirada ka batay inta la yareeyo oo hal urur ama la sameeyo ama maarta hal dalad la sameeyo oo la isugu tago marka waxqabadkii maarta loo diyaar garoobo maalin walba qof inuu urur sameeyo wax macnaa ma sameynayso laakiin waxaa macna sameynaya hal urur oo waxqabad ayaa ka qiimo badan waxaan ururaa